kulankan oo socon doona muddo 3 maalin ah oo ay soo qaban qaabiyeen Somali STEAM Society ayaa waxaa looga hadlayay doorka dhalinyarada aqoon-yahanada iyo ganacsatada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan horumarinta dhaqaalaha iyo wax soo saarka dalka iyo sidii sare looga qaadi lahaa barashada xirfadaha la xiriira sayniska, tiknoolajiyada, engineering iyo xisaabta kaas oo ay ka soo qayb galeen wasiiro, xildhibaano, aqoon-yahano iyo marti sharaf kale lagu casuumay ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho. kulanka ayaa inta uu socday waxaa si weyn looga dooday sida ugu habboon ee looga qayb qaadan karo wax soo saarka dalka iyo muhiimadda ay leedahay barashada xirfadaha kala duwan si dalka u gaaro horumar dhan walba iyo iyadoo goobta lagu soo bandhigay xirfado kala duwan oo ay ka mid tahay dalagyada raashinka ay ka baxa dalkeena Soomaaliya iyo qaybo kale oo aad u fara badan. madaxa ururka Somali STEAM Society Saadiya Abdullaahi Siyaad ayaa ka hadashay doorka dhalinyarada Soomaaliyeed ay ka qaadan karaan sare u qaadida horumarka dalka. horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha haddii aan rabno inaan naqano mujtamac oo aan ahayn consumers oo wax u isticmaalo sida ula socotiinba dibadaha ayaa alaabtan nooga keenaa cuntada aan cunayna xitoo dibadaan nooga keenaya bariiska iyo Soomaalida cunaan dibadaan looga keenaya baastada sidoo kale ka warrama haddaan ina dhaho maanta bariis Soomaaliya lagu suubiyo oo lagu abuuray ayaa halkan yaalo. wasiir dawlaha wasaaradda waxbarashada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle ayaa ka hadlay muhiimadda waxbarashada ay leedahay. wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare hadda waxa ay ku hoolan tahay oo aan rabnaa sanadkan markii ugu horeysay inaan hirgelino manhaj wasaaradda waxbarashada ay soo saartay oo ah fasalka koobaad ilaa fasalka 8aad. waxaan isleenahay manhajkan runtii waxa uu ku qotama manhajkeena hore dalka annagoo meelaha wax ka bedelnay oo waafajinay dabcan nidaamka dalka uu qaatay hadda dastuuriga ah laakiin inta badanna uu ku qatomo systemkeeni waxbarasho dalku lahaan jiray. wasiirka wasaaradda qorsheynta dawladda federaalka Soomaaliya Jamaal Maxamed Xasan ayaa sheegay in barnaamijka noocan oo kale ay qayb weyn ka qaadanayaan horumarka dalka. waxaan soo dhaweynayaa baankii wasaaradda ahayd inay barnaamijka dhaqamaha tifeedka farsamada gacanta xooga saaraan dugsiyada sare si dadka xirfado loogu sameeyo. waxaa kaloo maanta ahmiyad gaar ah siinayna in ay tahay maalin adduunka loogu dabaaldegaya arrimaha xirfadaha. sidoo kale waxaan aad ugu faraxsanahay inay joogaan gabdho Soomaaliyeed oo loo tababaray arrimaha farsamada gacanta oo runtii farsamada gacanta dad badan oo dibadda ka shaqeeya ay joogaan waddanka uga maarmi karo haddii aan dadka dhalinyarada aan maanta wax barno. barnaamijka farsamada gacanta ee waddanka waxa uu qayb weyn ka ahaan doonaa qorshaha qarankan hadda gacanta ku hayn. Muuse Cusmaan Abtow, telefishinka qaranka Soomaaliyeed.